لكن مليون بالينا مليون نبي محمد بأفلق عيسى عليه الصلاة كل وعنا ونكسن أصحاب تقاليد سيد شوتشدا وحدن كنالك حبين تركه فضلا هتي تهي داورشada كود أمام soo booqashada كود كنالك حبين تركه فضلا kusoo biir oo subscribe saar videogan aad daawanaysan muuqaalka like saar like to waa noo muhiim daawadayaal oo wax naga caawinaysa in YouTube-ku noo sii shargareeyo fiidiyoda haddaba daawadayaal ciid mubarak dhamaantiin meel kasta adduunka joogtaan iyo waqti walba aad daawanaysaan ku soo dhawaada xog aan niga hayno maamulyin oo ka mid ah dadka akhlaaqda xun ee sida aan wanaagsanayn u falanqeeya diinta islaamka oo ka dhigatay diinta islaamka wax la gali karo marka muraad ka galo marka kalena aad ka bixi karto haddaba sheekh kamid ah culimada Soomaaliyeed oo isla waqti xaadirkan jooga caasimadda Soomaaliyeed ee Muqdisho ayaa ka hadlay arrinta maamulyin taasoo maamulyin aflagaadeysay in saddexdii cisho ugu dambeeyay aflagaadeysay nabigeena Maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo diinta islaamka haddaba maamulyin oo ka mid ah dadka sida uga soo horjeeda diinta islaamka oo ka mid ah isla waqti xaadirkana ku sugan dalka dibadiisa ayaa culimada Soomaaliyeed intii ay soo shaac baxday maamulyin ay uga digeen in ay diinta islaamka aflagaadeyso haddaba sheekh lagu magacaabo Sheekh Caanood oo khudbadii Jimcaha ku soo qaatay in dhiigga maamulyin bannaan yahay maadaama qof kasta oo nabigeena Maxamed calayhi salaatu wasalaam aflagaadeeya in dhulka hoos la geliyo oo qof kasta oo diinta islaamka ama nabigeena Maxamed ka sheega sida maamulyin ama aflagaadeeya in dhiigiisu xalaal yahay haddaba Sheekh Caanood oo khudbadiisii Jimcaha si waafaqsan uga hadlay arrintaas ay social media ku dhex abuurtay dadka social media wax ku qorana ay aad uga cadhoodeen haddaba culimada Soomaaliyeed oo arrinkan ku tilmaantay arrin maamulyin lagu siiyo lacag ama ay Christianska kaga qaadato lacag haddaba maamulyin oo ka mid ah gabdhaha sida xun uga baxay diinta islaamka una aflagaadeeyay baraha bulshadana ka caan ah ayaa maamulyin laga sheegay in ay tahay dadka ka soo horjeeda diinta islaamka oo isla waqti xaadirkan barta Facebook page ay ku leedahay barta ku baahaysa arrimaha ku saabsan diinta ka soo horjeedka islaamka haddaba daawadayaal halkan waa kanaalka xogbeynta wararka fadlan ku soo biir oo subscribe saar